بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد وناكسن داوديال كسرودا حقت عيارها oo aan idinku hayo qodobo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee dhanka kala iibsiga ciyaartoyda ee qaaradda Yurub iyo wararka dhanka sportiga qodobadaas aad la socon doontaan waxa kamid ah intaan ku jirno xilli wareedkeena tababarihii hore ee kooxda Real Madrid iyo qaranka Spain Julian Lopetegui ayaa si rasmi ah loogu magacaabay macalinka kooxda Sevilla ee waddanka Spain ka dhisan kooxda Real Madrid oo maanta uu caafimaadka u marayo xidiga garabka difaaca bidix kaga dheela kooxda Lyon ee dalka Faransiiska waxa kale oo la socon doontaan sidee ayay noqon kartaa shaxda kooxda Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda kadib marka ay Hazard iyo ciyaartoy kale ku biiraan xog ayaan idinkaga hayaa oo idin la wadaagi doona sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa ku waramaya in kooxda AC Milan ee waddankaasi Talyaaniga ay heshiis shakhsiga ah la gaartay ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Lazio Milinkovic Savic qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal idin kula wadaagi doonaa xogta ciyaaraha soo dhawaada aan ku bilowna macalinkii hore ee kooxda Real Madrid iyo qaranka Spain Julian Lopetegui ayaa si rasmi ah loogu magacaabay macalinka tababaraha kooxda Sevilla ee waddanka Spain ka dhisan 52 sano jirkan ayaa shaqada qaranka Spain laga ceyriyay 2 maalmood oo ka hor koobka adduunka inta uu bilaaban 2018 xilligaasi oo loo magacaabay macalinka kooxda Real Madrid kadibna dhowr bilood oo markaa xilka hayay ayaa shaqada Real Madrid waxa laga eriyay October 4 bilood iyo bar kaliya ayuu maamulayay kooxda markii 5-1 ay ku dharbaaxday Real kooxda Barcelona oo gurigeeda ku dubatay Sevilla ayaa ku dhameysatay booska lixaad ee La Liga xilli ciyaareedkan iyadoo oo markaasi ceyrisay Pablo Mangin oo ah macalinkooda bisha March kadib markii Europe League laga ciribtiray kooxda haatan waxa ay u magacaabeen tababarahooda cusub inuu noqdo Julian Lopetegui waxa la leeyahay ninkan Lopetegui la yiraahdo aad buu ugu fiican yahay in kooxda uu baro kubad iyo qaabka loo ciyaaro positionka iyo kubad haysashada iyo baaska kubad kooxdu sameynayso waxa la leeyahay aad buu uga sareeyaa macallimiin badan kooxda Real Madrid 4 bilood iyo barka uu joogay waxa ay xaqiiq ahayd oo la qiray in ay dheelaysay kubad qurux badan oo lagu raaxayso laakiin barnaamijka iyo dhibka jiray ee kooxda haysay ayaa ahaa dhamaystir la'aan iyo isku xir la'aan dhinaca weerarka ka imaanayay kooxda laakiin waxa la leeyahay haatan Sevilla macallin Lopetegui waxa uu ku hogaamin karaa kubad qurxoon oo ay markaa kooxaha ka soo horjeeda ee waaweyn sida Barca iyo Real oo kale in ay kubadda la qaybsato ka haysan karto inkasta oo Sevilla haatan bay ka mid tahay kooxaha sare ee markaasi awoodda ku leh horyaalka Spain Lopetegui ayaa heshiis ku eg 2022 waxa uu saxiixay kooxda Sevilla iyadoo markaa uu ku sii joogi doono ilaa waqtigaasi wararka laga helayo dalka Faransiiskana waxa ay sheegayaan in Ferland Mendy difaaca garabka bidix ee kooxda Lyon oo caafimaadka maanta ugu marayo dalkaasi Faransiiska si gaar ah magaalada Paris kooxda Real Madrid 23 sano jirkan ayaa waxa markaasi la xaqiijinayaa inuu caafimaadka marayo maanta oo Lyon iyo Real Madrid ay dhameystireen agaasimaha cusub ee ciyaaraha kooxda Lyon ninka lagu magacaabo Juninho ayaa xaqiijiyay in Ferland Mendy uu dhaqaaqayo Santiago Bernabeu xilli markaasi la hadalayo in ciyaartoy kale oo dhowr ay kooxdaasi iib ka yihiin wada kooxda Lyon oo markaa la leeyahay waxa kamid ah Dombele iyo Nabil Fekir oo markaa uu sheegay labada ciyaaryahan sidoo kale ay kooxda ka bixi karaan ciyaareedkan Mendy ayaa bedel u noqon doona Marcelo Levy oo markaasi kooxda Real Madrid muddooyinkii ugu dambeeyay uga ciyaarayay garabkaasi xilli la hadalayo in ciyaaryahanno dhowr oo da'yar oo kooxda Real Madrid jooga oo ay ka mid yihiin Rogilan iyo sidoo kale Hernandez in ay amaah kooxda kaga baxayaan oo ay hadda ciyaaryahankan Real u soo qaadanayso inuu buuxiyo booska difaaca tareega ee kooxda Real oo muddooyinkii dambe ka mid ahaa boosaska kooxda dhibka badan ee uu ka haystay Ferland Mendy maanta marka uu maro caafimaadka si rasmi ah Real Madrid ugu shaaci doonto in ay markaa la wareegtay laakiin waxa ay sugi doontaa inta ay ka dhamaanayaan ciyaaraha caalamiga ah ee qarankiisa Faransiisku uu dheelayo markaas oo ay qaranka Faransiisku la dheeli doonaan dalal dhowr oo Turkigu oo 8 June la dheelayaan iyo Andorra oo ay 12 June la dheeli doonaan ay ka mid yihiin
kulamadaas markay soo dhamaadaan Real Madrid si rasmi ah ayay ugu dhawaaqi doontaa in ay la wareegtay Ferland Mendy sidaana waxa isku afgartay labada kooxood. Real Madrid ayaa ku howlan dhowr ciyaartooy in ay kooxda ku soo kordhiso. haatan waxaa markaasi la hadlayaa maalmaha soo socda in ay ku dhawaaqi doonto si rasmi ah la wareegitaanka Eden Hazard ciyaaryahankii Chelsea sidoo kalena ciyaartooy kale ayay suuqa ugu jirtaa Real Madrid oo xil ciyaareed wareersan soo martay. war degdeg oo hadda soo dhacna waxa uu sheegayaa oo ay kooxda Real Madrid si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la wareegtay ciyaaryahanka weerarka uga dheela kooxda Inter Frankfurt ee Luka Jovic. war kooban oo ay soo dhigtay boggeeda rasmiga kooxda Real Madrid daqiiqado kooban oo ka hor ayay ku xaqiijisay in weeraryahankii kooxda Inter Frankfurt Luka Jovic ay kooxaha Real Madrid iyo Inter ay ka heshiiyeen si rasmi ah oo caafimaadka maanta ugu marayo kooxda. waxay Real Madrid ku sheegtay war-saxaafadeedkeeda kooban ay soo saartay in ciyaaryahanku heshiis 6 sano ah uu saxiixay Real Madrid kaasoo ku eg 30 bisha June ee sanadka 2025. ciyaaryahankani Luka Jovic oo weerarka ka dheela ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la hadal hayay in kooxda Real Madrid ay la soo wareegayso kadib markii dhawaan la xaqiijiyay inuu heshiis markaa la gaaray kooxda Real Madrid. laakiin haatan Real Madrid waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday maanta inuu caafimaad ku marayo kooxda isla markaana uu noqon doono ciyaaryahan Real Madrid asbuucan gudihiisa. Luka Jovic waa weeraryahan dabcan muhiimadiisa leh waxaana uu kooxda Inter Frankfurt u dhaliyay dhowr iyo 20 gool xilli ciyaareedkii haatan la soo dhaafay. tartanka Europe League oo kaliya ayuu Luka Jovic waxa uu ka dhaliyay 8 gool. tartanka Europe League ayuu Inter Frankfurt waxa uu uga dhaliyay 10 gool iyadoo oo markaasi uu ahaa ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan tartankaasi xilli ciyaareedkii dhamaaday. waxaana Real Madrid weerarkeedu noqon doona mid xal weyn loo helay haddii Luka Jovic iyo Eden Hazard ay ku soo biiraan kooxda Real Madrid oo muddooyinkii dambe dhanka gool dhalinta ku liidatay tan iyo markii uu ka baxay libaaxii kooxdaasi ee Cristiano Ronaldo konton gool dhaliyowgii xilli ciyaareed kasta kooxdu markaa ay ku fakan jirtay. waxaana haatan la leeyahay weerarka Real Madrid waxa uu noqon doonaa mid dooqiyo badan leh markay ku soo biiraan Luka Jovic iyo Eden Hazard oo isaga qudhiisa kooxda Real ay qarka u saaran tahay in saacadaha soo aadan ay ku dhawaaqdo markii kooxda Real iyo kooxaha Chelsea iyo Real ay heshiis ka gaareen iibka ciyaaryahankani. Real Madrid ayaa ku jirta asbuuc mashquul badan oo ay suuqa markaasi ka doonayso inay ciyaartooy badan kala wareegto. maanta caafimaadka sidaas oo kale sidaan hore ku soo sheegay Ferland Mendy ayaa ku maraya magaalada Paris halka Luka Jovicna isna uu caafimaadka marayo. Eden Hazardna waxa uu ku sugan yahay Madrid magaaladaasi caasimadda waa dalka Spain isagoo idina la doonayo markaa in heshiis ka saxiixaan goordhow. ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Lazio iyo qaranka Serbia ninka lagu magacaabo Milinkovic Savic ayaa lagu soo waramayaa in uu heshiiska shakhsiga la gaaray kooxda AC Milan ee ka dhisan dalka Talyaaniga. wararka laga helayo dalka Talyaaniga ayaa ku waramay in ciyaaryahankani uu heshiiska shakhsiga la gaaray kooxda AC Milan. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan AC Milan in markaasi ay dalab rasmi ah ka gudbin karto ciyaaryahankani Milinkovic Savic oo tan iyo xilli ciyaareedkii hore ay markaa doonaysay. waxaa leeyahay waxaa jira heshiis dhex maray ciyaaryahanka oo ah markaasi Milinkovic Savic iyo kooxda AC Milan. haddaba warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha kooxda Lazio Claudio Latito oo markaasi shaaciyay in ciyaaryahan Milinkovic Savic uu joogi doono kooxda Lazio xilli ciyaareedkan oo uusan markaasi u dhaqaaqi doonin kooxda AC Milan. xilli waraysi siinayay radio-ga lagu magacaabo Rai isniintii xalay ayuu Latito waxa uu sheegay in uusan ciyaaryahanka Milinkovic Savic ee qadka dhexe uga dheela kooxda Lazio oo xilli ciyaareedkan ka bixi doonin kooxda uu sii joogi doono. xilli ciyaareedkii hore waxaana soo gaaray dhowr dalab oo laga soo gudbiyay ciyaaryahankan laakiin arrintaasi ma aysan dhicin in si rasmi ah aan u qaadanay. waxaan haysanaa ciyaaryahan weyn oo muhiim noo ah aad bay muhiim u tahay inuu sii joogo kooxda. haddii laga fursan waayo waa arki doonaa laakiin waxaan ku rajo weynahay inuu sii joogo isagu ayuu yiri madaxweynaha kooxda Lazio. Milinkovic Savic ayaa muddooyinkanba waxaa la hadal hayay in uu markaasi ka mid yahay kuwa ugu horeeya ee safka hore uga jira ciyaartooyda suuqa laga doonayo. kooxda AC Milan ayaana ahayd kooxaha markaasi sida aadka loola xiriirinayay in ay qaadan doonaan. haddii aan soo qabto qodobka ugu dambeeyna Real Madrid waxaa la leeyahay xilli ciyaareedkan soo socda waxa ay noqon kartaa koox wax kale ah oo awood badan iyadoo dhowr ciyaartooy markaan la hadal hayo in kooxdu ay la wareegi karto maalmaha soo socda.
ciyaartoyda kooxda Real Madrid lala xiriirinayo in ay imaanayaan xil ciyaareedkan waxaa koow ka ah Eden Hazard oo ay qarka u saaran tahay haatan Real inay ku dhawaaqdo heshiiskiisa rasmiga ah. difaaca qaranka Brazil ee Milito ayaa ka mid oo ay kooxdu la wareegtay kol hore. Luka Jovic weeraryahanka kooxda Inter Frankfurt oo ay maalin dhexe heshiis la gaartay kooxda Real ayaa isna ka mid ah ciyaartoyda la filayo inay yimaadaan. Ferland Mendy oo maanta caafimaadka u maraya waa difaaca Lyon ayaa isaguna ka mid ah. iyo ciyaartoy kale ayaa suuragal ah leeyahay Real Madrid inay xil ciyaareedkan keento garoonka Santiago Bernabeu. haddaba waxaa la soo saaray shaxaha dhowr ah oo kooxda Real Madrid ay ku soo shirtay karto xil ciyaareedka soo socda. goolhayaha waxaa ku soo bilaaban kara leeyahay Thibaut Courtois, difaacu waa Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane iyo Marcelo ama Ferland Mendy oo maanta caafimaadka u maraya. qadka dhexe waxaa ku midaysan Luka Modric, Casemiro iyo Toni Kroos, halka weerarka ay wada maamulayaan Eden Hazard iyo Vinicius Jr oo garbaha ka imaanaya iyo Karim Benzema oo weerarka. taas waa shax. midda kale waxay noqon kartaa leeyahay Thibaut Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane iyo Marcelo, Luka Modric, Casemiro iyo Kroos oo qadka dhexa. Eden Hazard ayaa wax yar tuuran oo lambarka diyeeshaha ayuu ka ciyaari karaa, halka Karim Benzema iyo Vinicius Jr ay weerarka si toos ah ay u maamulayaan. haddii aan fiirino shaxda kale ee saddexaad waxaa leeyahay goolhayuhu waa Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane iyo Marcelo ama Ferland Mendy. qadka dhexe waxaa leeyahay Toni Kroos iyo Casemiro ayuu noqon karaa, halka weerarku ay noqon doono afar waa garbaha oo Vinicius Jr iyo Eden Hazard ay markaa ka imaanayaan iyo weerarka ay si wada jira u tuuran yihiin Luka Jovic iyo Karim Benzema. kadare weeyaan marka halka ay marayso waxba lagama qaban karo weerarkaas. marka ay Real Madrid shaxda noocaas ku soo tagto waa afar gool dhaliye oo cajiib ah ayaa weerarka markaa ku midaysan. magacyo ayaa loo bixin karaa mar haddii sida ay noqoto. oo Hazard iyo Vinicius Jr waa laba nin oo kubaddoodu markaasi kubadhaynta ku wanaagsan oo kubadda inay jiidaan oo ciyaartoyda marmaraan aad u jecel. waxaa markaa weerarkuna Benzema iyo Luka Jovic waa laba dhamaystire oo cajiib ah qudhoodu. dabcan Real waxaa leeyahay xil ciyaareedkan aad bay u dhaarsan tahay xil ciyaareed musiibo ah oo aad u qariban ayay soo martay. waxay markaasi haatan doonaysaa inay ka soo kabato fadeexadii xil ciyaareedkan ku dhacday kooxda. aynu arki doonaa sida ay noqoto awoodda Real iyo macallin Zinedine Zidane oo aad uga careysan kulamadii ugu dambeeyay ee kooxdiisu dhacdhicitaankii iyo galabgalabtii ay ku jirtay. daawadayaasha qiimaha low, ciid wanaagsan mar kale. warkii koobnaa intaa ayaan ku soo idleynayaa. daawade fadlan haddii aad ku cusubtahay page-kan ama channel-kan xogta ciyaaraha subscribe noo saar. aad baad u mahadsantihiin.